wardegdega oo ka yimid magaalada Muqdisho fila Soomaaliya waxa uu sheegay inuu burburay shirki u dhaxeeyay dawladda iyo mucaaradka. sababtaasi waxay timid kadib markii mucaaradku maanta ay tageen fila Soomaaliya warkooda waxa ay ka bilaabeen doorashada maamul goboleedyada hal lagu qabto doorasho dadban halka jawaabtii madaxweynuhu noqotay shaqadiina waxaan ahayna ka hadlinina ee ajandaha noo yaala inuu ka wada hadalno taasoo muujinaysa in madaxweynuhu uusan raali ka ahayn in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo mucaaradku ay ku lamaan yihiin lagala hadlo doorashooyinka maamul goboleedyada sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. isjiid dheer iyo shirar kala goonigooniya oo la galay iyo is-horfadhi saacado qaatay kadib shirkii waa lagu soo kala tagay waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay inaan dalkan doorasho dadban dib loogu celinayn oo madaxweynaha dadaalkiisii 3 sano ee la soo dhaafay ahaa in uu qabto doorasho toos ah ama qof iyo cod ah dhaqaale iyo waqtina uu ku bixiyay aan dib loogu laabanaynin doorasho dadban halka mucaaradku danaynayaan in doorasho dadban dib loogu laabto waa lagu soo kala tagay maadaama la isku fahmi waayay dawladdu waxay sheegtay inay raajicinayso si kasta oo shirkaasi uusan ku burburi lahayn halka mucaaradka oo xanaaqsan fila Soomaaliya ay ka dageen daqiiqadihii la soo dhaafay wararkan iyo wixii ka soo kordhay shirkaas daawade kala soco halkan.